بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد الحو كسر دوادا عشرة نصعدية تحناي نوها إنه كسر بالله بيني قيبتا هاسة دكسيجا هاسة بالله هو حسابته قدرته إن شاء الله تعالى أنت نسعتي فنسوق هذا الني حساب مركا قدرته إذا مركا أسد حشر مركا سوق هذا الني iyo maxaan ku raahdaa wax qabadiyo marka la socday cashar kasta aan dirayno ama aan qadanayno markastaba waxa daba yaala qaybta dambe wax qabadkaasina qofka casharka dhageysta ee fahma ayaa ka shaqeyn kara insha Allah taala maanta shaashada waxa inoo saaran inuu qadanayna masalooyinka kuwana ugu waxay ku saabsan yihiin xisaabteena soo qaadanay ku darta insha Allah taala waxaan xigi doonaa hal cashar oo layliya kadibna waxaynu gudbi doonaa sectionka labaad ee xisaabta ka jirta ah markaynu qaybta qaadan haddii Ilaahay yiraahdo misalooyinka wala masaloon ka shaqeyn doona anigu iyo wax qabadka dambe ee u jeedo aad ka soo shaqeyn doonto asna la waxba haddii Ilaahay yiraahdo marka kan dad fahamto kana waad ka shaqeyn doontaa insha Allah misalada koowaad beerta Xasan waxaa ku yaala 1348 geed oo liin ah beerta Nuur waxaa ku yaala 2546 geed oo liin ah labada beerood imise geed oo liin ah ayaa ku yaala masaladu saasi u dhacaysaa tirooyinka sida loo aqriyo wayna soo qaadanay casharkii koowaad aynu ku soo qaadanay tirada booska hore joogta dhinaca midig markii laga fiiriyo waa koowaad tirada xigta waa tobnaad tirada xigta waa boqolaad tirada xigta waa kumaad saasan ku wadaynay marka akhriska tirooyinkan inaad aad u fahamsan tahay waa laga marmaan marka aad inaad u fahamto isku day insha Allah taala marka labada beer waa midna Xasan baa iskale midna Nuur baa iskale midda Xasan 1348 geed baa ku taalo liina halka beerta Nuur ay ku taalo 2546 geed oo liina labada beerood markii imisa ay ku taala marka su'aashan waad iska fahmi kartaa labada beerba hadii lagu yiraahdo mesela adigu lagu yiri waxaad haysataa 5,000 shilin Soomaaliya saaxiibka ama saaxiibtan waxay haysataa 4,000 shilin Soomaaliya labadiinu imisa lacag haysataan waxaad dhihi lahayd kaliya lacagta aad haysato iyo midda saaxiibta ama saaxiibka aad isku dar lahayd kadibna wixii ku soo baxay dhihi lahayd intaas oo lacag ayaynu haysanaa saas oo kale waan isku daraynaa maadaama tirada beerta Xasan iyo tirada beerta maxaan ku yiraahdaa tirada geedaha inta geedaha beerta ku taal Xasan iyo tirada inta geedaha ku taal beerta Nuur wadartooda nagala doonayo waxa ay tahay haddaba waan isku daraynaa shaqadan oo qabanaynaa shaqada qabashadeedu iyo sida looga shaqeeyo aan soo qaadanay marka kaliya waxa haboon inaynu fahamno hadhowda masalooyinka qaar oo la soo wada xadari doona qayb ku dara iyo qayb ka jara iyo qayb ku dhufa iyo qayb u qawi hadaynu gaarno dad markay kala soocan karto kala saaran karto ayaa muhiimad u tahay insha Allah taala beerta Xasan waxa ku yaala 1348 geed baa ku taala hadii marka halka aan ku qorano 1348 geed baa ku taala beerta Xasan 1348 geed baa ku taala beerta Nuurna waxa ku taala 2546 maadaama tirooyinku isku mid yihiin markaan toos baan isku soo dhigi karnaa 2546 geed baa ku taala sided waxaan ku daraynaa 6 14 weeye afarta aynu qoranaynaa hal baynu wadanaa halka aynu qor afar ku dar afar sided weeye halka ku dar 9 weeye wax tira number ma wadano 3 ku dar 5 sided weeye okay hal ku dar 2na 3 weeye tirada sabaxda akhrinteeda wayna taqaana waa muhiim 3,894 baa soo baxday marka jawaabtaan bixinayno saan kaliya ma aha waxaan leenahay labada beer waxa ku yaala 3,894 geed oo liin ah jawaabta sidaas aan bixinayno waxaan leenahay beerta Xasan iyo beerta Nuur waxa ku yaala
3,894 geed oo liin ah saas jawaabaysa haddii Ilaah yiraahdo. taas waa masalada koowaad. masalada labaad baqaar ayaa lagu dejiyay intaan dambe ma jirto. baqaar ayaa lagu dejiyay intaan dambe waa cancel. baqaar ayaa lagu dejiyay 281,400 kiish oo sonkor ah sabti. maalinkii sabtida ah ayaa baqaar waxaa lagu dejiyay 281,400 oo kiish oo sonkor ah baa lagu dejiyay. maalinkii axad ahaana waxaa lagu dejiyay waa ka axadiina waxaa loo dejiyay yani qof weeye qofka baqaarka iska leh ayaa loo dejiyay. waxaa loo dejiyay 965,534 kiish oo kale ayaa loo dejiyay. imise kiish oo sonkor ah ayaa loo dejiyay labada maalmood. baqaarka maalinkii koowaad ee sabtidii 281,400 oo kiish baa lagu dejiyay. maalinkii labaadna waxaa lagu dejiyay 965,534 kiish oo kale oo sonkor ah oo macnaha ayaa loo dejiyay. haddaba su'aashu waxay tahay imise kiish oo sonkor ah ayaa loo dejiyay labada maalmood. tii hore oo kale maalinka hore inta baa la dejiyay, maalinkan inta baa la dejiyay. labada maalmood maxaa loo dejiyay? waa tusaale anaga ku dhahay shalay baad waxaa lagu siiyay. waa tusaale anaga shalay ku siiyay 10,000 shilin Soomaaliya. maanta waxaan kugu daro markaa 5,000 shilin Soomaaliya. su'aal baan ku diiyo markaas waxaan ku dhahay lacagtan shalay ku siiyay iyo tan maanta ku siiyay tiradeedu waa imis? waxaad leedahay shalay waxaad siisay 10,000 maantana waxaad siisay 5,000 isu kaygay marka waa 15,000 baad siisay. sidoo kale marka waan isku daraynaa. waxaan leenahay nambarka koowaad oo ah 2,200 aan dhaho 81,400 aynu waxaynu ku daraynaa tiradan dambe ee ah 965,000 maadaama isku digit ahaan ama god ahaan isku mid yihiin waan isku aadinaynaa. hor nambarkiisaan ku aadinaynaa balse waxaan isku ogeyn haddii godadka ay kala badan yihiin مثلا 3 god ama iyo 2 god oo kale ay kala yihiin ka soo bilow inaad isku darto aad ku hoos qorto tirooyinka kuwa markaa waxaan ku raahdaa koowaad ku aadi tobnaad ku aadi boqolaad ku aadi saawad. hadda eber afar ku daraynaa waa afar ku darno 4 weeye. eber markaynu ku darno 3 weeye. afar markaynu ku darno 5 9 weeye. hal markaynu ku darno 5 6 weeye. 8 markaynu ku darno 6 14 weeye. afartayna qorana hal baan wadnaa. 2 markaynu ku darno 9 weeye. halka ugu marka waxa weeye 12,000. markaana waxaa loo tirinayaa sidaan oo kale 1 2 3 halka waxaa la geliyaa hakad 1 2 3 halka waxaa la geliyaa hakad kun baa loo xiraa. haddaba tiradan hadana qorano waxay noqonaysaa marka milyan ama 1,246,934 jawaabta taas ay noqonaysaa. balse waxaynu u jawaabaynaa waxaanu leenahay labada maalmood baqaarka waxaa lagu dejiyay 1,246,934 kiish oo sonkor ah baynu leenahay. marka labada hore waa misalooyinka aanu ka shaqeynayay. laba dambe ee waxqabadka ah bal adigu isku soo day waa sidii hadda oo kale waxba kama duwana hadduu Ilaahay yiraahdo. cali ayaa maalin ku soo iibsaday 128,000 shilin Soomaaliya. eberada dambe waa eberada aan ku naqaano shilinka Soomaaliga ah leen halkii 1,000 shilin Soomaaliya geesta waxa ugu tahay 3 eberad iyo hal macnaheedu tahay 1,000 oo caadi ah. marka 128,000 shilin Soomaaliya ay ku soo iibsaday shaati iyo sarwaal. waxa kale oo 20,000 shilin Soomaaliya ku soo iibsaday kabo. wadartu maxay tahay lacagta guud ahaan ka baxday yarka caliya ee soo gatay saraawiilka iyo shaatiga iyo kabaha lacagta guud ahaan oo ka baxday meedhiyo maxay tahay? su'aasha labaad waxa weeye sanduuq ayaa waxa ku jira 73,546 xukumood baa ku jirta. sanduuq kalena waxa ku jira
5783 ukumood baa ku jirta. haddaba su-aasha waxaa weeye imise ukumood ayaa ku jira labada sanduuq. labada sanduuq ukumaha ku jira guud ahaan waa imisa ayaa laga doonayaa haddii Ilaahay yiraahdo. taa dambe oo kale godadkani way kala badiyeen aad isaga eeg. halkan waa 1 2 3 4 5 god weeye. qaybta dambena waa 4 god saad arkaysaba. marka koowaad ku aadi, tobnaad ku aadi, boqolaad ku aadi, kumaad ku aadi saawada insha Allah taala. haddaba inta ayaan ku soo koobayaa qaybteena markaa afraad. qaybtan waxay noqonaysaa mas'alooyinka qaybta afraad bay inoo noqonayaan hadaynu aan xag ka soo fiirino qaybta afraad ay nagu aadayn insha Allah taala ee xisaabta ku darta in wadnay. hal qayb oo kale aan ku daraynaa oo markaa layli ah, kadibna qaybta kale aynu geli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.